السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد وراليال برنامج كني يان قد قلنا برنامج كني عصبة هذا كو عصب تحول كو رسالة ورال كسر دو سبسكرايب كسر لايك كسر شير تسار كسر دواد عشان لكنا ورال يجيب عمرين وراليال ما برنامج حصلني والله وإن بدن الله على هيد ما طبعا كان لنا برنامج والد لبدا والد اسقطه قربها ما دركتي isku qaba kala taga dibta ay leedahay iyo maanta ka hadlaynaa dad badan oo soo weydiyo nagala soo hadlay live baan ku jirnaa hadda ilaa waxaan daawanayso 1700 qof iyo live kan ugu jirto yakana telefoonka siin doonaa nasiibkooga siin doonaa barnaamijku wuxuu ka hadlayaa arrinka uu ka hadlayaa maanta oo inaa ma daragtay ugu galno inaa xal laga heli karo inaa xal laga gaari karo qurbaha guurka ka dhacayo iyo Afrika ka dhacayo isku mid maaha maxaa lagu kala duwan yahay qurbaha iyo Afrika xilliga qurbaha waa system cusub arooskiisu imka masalan gabadhii haddaad guursatay oo kala tagtiin ilmihii kaligeed bay korsanaysaa waa dhib taaba kaga duwan imka Afrika oo kale familigii waalidkii caawimaad baa helaysaa halkan laakiin qofkii kaliya ta ku soo baxayo ilmihii qofkii baa la tabcayo xilliga xal sidii loo heli lahaa guurka qurbaha ma dumarkaa khaldan ma raggaa khaldan bal dadweynaha siinanaa telefoonka siinanaa walaalayaal haddayna shaashadan ku qorana telefoonkayga halkaa bay nagala socdaan qofka u horeeyaan soo qabanaynaa رئيسة بل يا كور علينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا البرنامج كله سعة عمله يا. برنامج كذي عمل بس. برنامج كذي عمل تدين ساي. حاجة كسؤال اللي سياسة هذا ما قاعد ولا. وحنا كسرنا يا مجال نور كسرنا يا مجال القصر. أيه. ما عين عبد الله مدوب. كسر عبد الله مدوب. كن iyo 600 ilaa 1800 qof baa kula socota Cabdilaahi oo ku dhageysanayso kun iyo 800 ilaa 1700 qof baa ku dhageysanayso maxaa ray u jeedin lahayd maxaad ku darsan lahayd sidee u aragtaa meel buuqa dhex joogtaa waa mala Cabdilaahi Mudug barnaamijka 1700 qof ilaa 1800 qof baa ku xiran bal adigu raygaaga maxaad dhiiban lahayd ma halka dumarka kolka laga dhaqaaqo Cabdilaahi ma maqashaa Cabdilaahi halo Cabdilaahi ma maqashaa halo telefoonka ka go'aan malay hawada waan ku celi doonaa ray wuxuu dhigtay isaguna ninkaasi Noor inagala soo hadlay Oslo ray wuxuu dhigtay dumarka ma aragtay inay ma aragtay inna khaldayihiin raggan inna khaldayihiin shantii nafrood ma sinno bal waan ku celinaa hawada ka go'aan malaya Cabdilaahi Mudug waan ku celinaa bal raygiisa wuxuu dhigto Cabdilaahi ma maqashaa هذا ما يمقشة وعن كلها كون يزداد بقول ما كون يضرب قلوف بقول داور شو هذيك هالرأي جا محد يبين لهيد حق الدمركة هذيك هانو لا رأي واحد يبدأ يحول حمارة نفسي وشو بزيزنا أيه إن كفكر أجل فينا
waxaad u jeedaan waxa ninka isaga furayso inay lacag maad aragtay ciyaalka ku heshay wax saa u jeedaa lacag waxaa la siinayaa balaan aligaa lacagta ay qaadanaya reer ma dhisi kartaa lacagtaas oo reerkooga wataan ba ujeedaa aroos walbay tagaan ba ujeedaa kaa dhex galay cabdillaahi adaa hadal kale hadda maad aragtay xafladaha iyo waxa bilow stresska baabiyaa qurbaha bilow stress ku baabiya raggana maxaad u jeedin lahayd cabdillaahi mudug islaantaada kama xishoon karti islaantaada inaan ka xishootiyo maya hadda gabdhaha soomaalida waa gabdhaha ugu fiican cabdillaahiyo waa gabdhaha ugu fiican ee jacaylkana garanayo waxaad u jeedaa raggii baa ka samaysanayn oo beerta isaga jira way ku maqlayaan kolley rag badan way ku dhex jiraan meesha iyaku way ku maqlayaan jacaylku ceemaa qof islaantaada ka tirado ku jecelaha ceemaa xilligaa guurka la kala tegayo qurbaha lagu kala tegayo dhib aad weyn buu leeyahay malaya cabdillaahiyo dhib aad u weyn ilmaha macala caruurta maad aragtay waalidiyada kaasi cabdillaahi buu ahaa oo norway nagala soo hadlayay oslo khadkii baa ka go-a u malaya mar labaad barnaamijkeena sii wadana ku sida gudagalayna qurbaha dhowr hadal buu taabsaday ragga soomaaliyeed buu nacam ragga jacayl garanaya maaha dumarkooga maad aragtay haddee maad aragtay isku dhacaan sidii jacaylka loogu sheegi lahaa loo soo sabi lahaa ayay ka xishoonayaan waa ninkaa maqlayo ragga qurbaha ku nool oo dumarkiina waa inaad ka samaysatiin dumarkan waa inay joojiyaan foodada haddii la wada nool yahay ciyaal la leeyahay oo magaaladii la wada degan yahay oo muhiimiyadda ugu weyn waa reerka inuu burburo dhayal ku burbura maaha inkastoo aragnay maad aragtay dhibaatooyin badan yurubtan ka aragnay reero dhayal ku burburayo reero maad aragtay dhayal ku baaba-ayo waa aduu qisado waa barnaamijyo badan baa kasoo diyaarin doonaa ciyaalka maad aragtay aabbaha leh iyo ka aabbaha lahayn barnaamijyo badan baa kasoo diyaari doonaa waxaa maad aragtay loo sheegayaa dumarka inay reerkooga wataan waayo qorbuhu aad buu adeegyahay ninkii hadduu gabadhii ka tago aqalkii cilliga ku noqonaysaa ilmihii keligeed ma kori karto idan ma bara karto iskool dhinac bay ka geenaysaa wixii oo dhan wuxuu kusoo dhacaya labadii qof kolkay isla nool yihiin bayba adag tahay oo shaqadii laysla qaybtamay qof keliyaad kol kusoo dhacana aad bay u adag tahay waxaa dadkeennii hore waalidadeennii hore samir bay ku wada jireen reeraha waxaa loo baahan yahay raggu inay dhabarka saartaan wax walba ee samraan ee roorahooga wataan wixii dhibaato wax walba yimaadana dhabarka u dhigaan dumarkana waxaa laga rabaa inay samraan reerkooga maad aragta
gaalkiina dhegeysan bacda madoobe dibadda qisad baa waa dhacday inan baa iga sheekeeyey magaalo agteena ka dhacday magaalada lama sheego waxaa nanoo soo sheegay inuu ku yaraagay ninku inamu la barjeenay majliskiibuu ku yaraagay mabres meesha carabta dhinacna ka tiraahdo saacadida buu yimiday telefonkiisuna uu ka baktiyay ahayd islaantiisina way wacasay iyadii isagii bay raadinaysaa inuu dhintay inuu maadaragta accident gala in la xidhay isaga kolkuu soo galay aqalkii catabadii soo koray ayuu arkay aqalkii ku nabnaa albaabkii ku nabnaa bac madow hortaallo gaal baa degan aqalkan gabadhii deganeed baa iska soo saartay bacda qashin buu ahaa way daadinaysay gudihi ku laabanta waxay lahayd dhar iyo waxbay jakadii waxbay soo celinaysay nasiib way kulmeen ninkana bacdin buu arko birqaanka unbaa u sawiray aqalkiisa hortiisa inay tahay bacdiisiiba oo islaantiisa dibadda u soo dhigtay maadaamuu daahay aayarmu iska qaatay bacdii gaadhiga mu ku ritay majliskii mu ku laamay kolkuu majliskii ku laamay asxaabtii baa lasla iyo kusoo maxaa dhacay madaxweyne meey bacdi baa dibadda laysoo dhigay aniga laha aawa raggii asxaabtii gaadhigii soo kaxaystay islaantii baa loo yimid guriga la qarqaraacay iyadii oo seexan loo aqalkiisa u duurayso maskaxdu madaxu qarxay iyadiina isagay ka walwalaysaa xilligaa waa raggii baa la hadlo ka yidhi kolkii raggii aragtay waxay moodayeen inuu dhintay iyadii wax kala kala dhacay dee toolada inuu dhimasho loo soo sheegay in la xidhay iyadii wadnaha kacoo way dhici gaadhaba maxaa dhacay dimaashii ka yidhahdeen muxuu sameeyey maanta annaka nagu dhaaf wax shey nagu dhaafaa dee unoo yimid bacdii baa dibadda u soo dhigtay bac maxaya laa ilaaha illaa isaga u yeedha haye see wuxuu jiraan bacdina isagii u baqayaa marka dambe ku jiraaba dee anuu wax bac ma soo saarin bacna dibadda ma soo saarin bacna ma siinin kan bay tiri bacdii baa dib loogu laamay dib baa loo soo qaday bacdan waxaaba ku jira waa qashin waa qasiir baa ku jira oo loga yaray halkiiba isagana maalinta jaadka ugu dambeysay qurbuu dhibkaa buu leeyahay bacda madoobaa raggana cadibta xilliga bacda la yidhaahdo iyaguna waxay ka qaadayaan nervos waxaa lagu odhan lahaa hablahana bacda dhiga dhulka xareeya bacda ninkiina haysta waayo maanta nisa lagu helo adag tahay gabadh nisa lagu helo adag tahay fiican reeraha inaa dhaya lagu baabiyana maaha ciyaalaha ku baaba'ayo ciyaaladii baa maad aragtay ciyaaladan masalan baaba'aya mukhaadaraadka iibinaya dhibta badan liyo waa ciyaalada maad aragtay waalidadu maad aragtay kala maqanyihin iyo ciyaaladana waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamij kale hadduu ilaha idhaahdo walaalayaal barnaamijkeena maanta intaa noogu egyahay isarag damba wanaagsan kusoo dhawaada marka hadday kugu cusub tahayna channelkeena subscribe saar like saar share saar ha kala bakhaylin madaxa ku saar is aboonee subscribe saar kusoo dhawaada walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu